The other thing that's very important is to recognize the problem of food. arrinka kale ee muhiimka ahi waxa uu yahay in aynu garwaaqsano dhibaatada cuntada inaga haysata. waxa aynu ku nool nahay nidaam cunto oo aan fayoobayn. sonkorta oo qiimo jaban lagaga soo waarido dalal kale awgeed ayuu Mareykanka ku xadiday sonkorta dalkiisa loo soo dhoofinayo. sida awgeed dadka Mareykanka ahi badanka waxay cuntada ku darsadaan casiirka galleyda oo lagu farsameeyay Mareykanka, taas oo keentay badankoodu si daran inay u cayilaan. maxaa yeelay casiirka galleydu ma aha il wanaagsan oo sonkorta laga helo. sonkortu waa sun fadhida. maxaa yeelay sonkortu waxa ay samaysaa isbeddello kiimikaal ah oo waxyeello weyn gaadhsiiya caafimaadka bini'aadamka. dhanka marka laga eego waxa ay aad isu shabahaan khamriga. khamriga waxaa sun ka dhigay maadooyinka sunta ah ee uu ka kooban yahay iyo dhaawaca gunta dheer ee jirka uu gaadhsiiyo. marka dhammaan xanuunada uu khamrigu sababo ee ay ka midka yihiin nooca labaad ee xanuunka macaanka, xanuunka subagowga beerka iyo xanuunada maskaxda ku dhaca, waxaynu arkaynaa xanuunadaas oo maanta carruurta ku dhacaya. laakiin carruurtani khamri ma cabto ee xaggee ayuu xanuunkani uga yimi? sonkorta ayay cunaan. sonkortu waa alkoholka carruurta. ubadkii soo barbaarayay waxaa ku dhacaya xanuunadii khamriga laga qaadi jiray iyaga oo aan khamri cabbin. gunta iyo gabagabadu waxay tahay waxaad barataaba waa baaska. sida awgeed adiga oo og balwadda sonkorta ee aad leedahay iyo inay waxyeello gaadhsiinayso jidhkaaga, caafimaadkaaga, qoyskaaga iyo cid kasta oo kugu xeeran, ayaanan haddana waxba ka qaban karin. maxaa yeelay waa balwad. micnaha balwadduba waa intaa. sababtoo ah biochemistry-ga ayaa ka xoog badan saamayn kasta oo aad ugu tala gashay balwadda inaad iskaga caabisid. waa kaa qeexitaanka balwaddu. waxaa socda dagaal iyo loolan. waxaa socda kacdoon aan dhiig ku daadanin. balse si kastaba ha ahaatee waa kacaan ka dhex abuurmay dhanka nafaqaynta iyo caafimaadka. kacdoonkaasina hadda waxa uu gaadhay fiiqii u sarreeyey. taana waxaa horseeday dhowaan uun in aynu ka war helnay shirkadaha cuntada soo saara iyo kuwa sonkorta soo saara inay si taban majaraha ugu hayeen aqoonta iyo baadhitaanada cuntada ku saabsan ee la sameeyey 45 sannadood ee u dambeeyey. aqoontaas oo dadka ku dhex faafisay caafimaadka iyo baruurtu inay ku xidhan yihiin hadba kaloriga aad cunto, iyo caafimaadku inuu ku jiro cunto badan oo la cuno iyo tamar yar oo la gubo. iminka ayaynu ogaanay hadalkaasi inuu been iyo waxba jiraan uu yahay. sida awgeed dadka in laga tirtiro oo laga wacyigeliyo waxay aaminsanaayeen 45 sannadood ma aha arrin fudud. daraasadii ugu muhiimsanayd ee nafaqaynta laga sameeyey waa ta loo yaqaano The China Study ee uu sameeyey Dr. Campbell iyo caawiyaashiisu. aqoon-yahankani waxa uu ahaa baadhe xul ah oo ka socday jaamacadda Princeton oo ay wehelinayeen koox baadhayaal ah oo ka socday jaamacadda Oxford. marka bal aan idinla wadaaga dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan daraasadda The China Study. arrinka ugu horreeya waxa uu yahay natiijada daraasadda ka soo baxday inay noqotay mid si weyn u dhala rogtay fikradihii cuntada laga haystay, taas oo kaliftay dib u habeyn in lagu sameeyo saddex geesoodkii cuntada. balse hilibka iyo caanaha in saddex geesoodka meel hoose laga geliyay awgeed ayay shirkadaha hilibka iyo caanaha soo saara ee Mareykanku ay gaashaanka u daruureen daraasaddan oo ay qasab ka dhigeen in la bedelo saddex geesoodka cuntada, taas oo ka dhigan saynisyahanadii insaaniyadda u adeegi jiray inay maanta dana gaar ah u adeegayaan. daraasadda China Study waxaa lagu ogaaday goobaha jidhka aadama ee uu borotiinku ka yar yahay 5% kansarku inaanu ka samaysmi karin. asalka daraasadda waxaa lagu sameeyey magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya. sidaa awgeed daraasadda aqoon-yahanadii Harvard way ku qosleen oo way qaadan waayeen. markaas ayuu Campbell mar kale hortooda uu daraasaddii dib ugu sameeyey. arrimaha dulistaaga mudan ee daraasaddani ay ka iftiimisay cunitaanka hilibka iyo cabitaanka caanaha waxaa ka mid ah in ay sheegtay horta hilibka maanta aad cuntaa in aanu la mid ahayn kii ay cuni jireen awowga iyo ayeeyada. dadka hore waxay cuni jireen oo cabbi jireen cunto organiga. ma jirin waqtigaa wax organic la odhan jiray oo 50 sannadood ka hor wax waliba organic ay ahaayeen. waxa ay cuni jireen hilibka xayawaano baraare ku jira oo beer lagu dhaqo oo si xushmadi ku jirto loola dhaqmo. xoolo dhaqatada xiriir wanaagsan ayaa kala dhexeeya xoolahooda, si karaamo lehna way ula dhaqdaan. marka maxay tahay dhibta ku sugan cuntada la farsameeyey? waa dhowr dhibaato oo kala duwan, balse waan idiin tixi doonaa. waxaana jira daraasado aqoonaysan oo ka marakacaya qodobada aan xusi doono mid kasta oo ka mid ahi halista uu caafimaadka u leeyahay. cuntada la farsameeyey waxaa ku jira walxa tiro badan oo halis ah oo ay ka mid yihiin waxaa ku yar fiberka, waxaa ku yar acida dufanka ah ee omega 3 oo bararka ka hortagta,
waxaa ku yar nafaqeeyaasha yaryar, waxaa ku badan dufanka isroga, waxaa ku badan acid amino oo laga helo kaydka hadhuudhka iyo galleyda ay xayawaanku quutaan, waxaa ku badan acid dufanka ee omega 6 oo bararka sii caabuqisa, waxaa ku badan maadooyin samays ah oo lagu daro, waxaa ku jira emulsifiers oo iminka aan u malaynayno inuu sabab u yahay xanuuno tiro badan oo waxyeello gaadhsiiya nidaamka difaaca jidhka, waxaa ku badan milix xad dhaaf ah. maadooyinka aynu soo xusnay midkoodna kuma dhiirigelinayo cuntada la farsameeyey inaad u muhato, hase ahaatee sonkorta oo ah xubinta ugu dambaysa ee liiskeennan ayaa ah meesha lagu jabay. warbixinta National Geographic sonkorta ay ka diyaarisay waxay ku xustay inay sonkortu si aad u heer sarreeya loo qabatimo oo ay bilwo tahay. dhab ahaantii shuruudaha DSM-5 ay u samaysay qabatinka in lagu garto intaba sonkorta waa ay ku sugan yihiin. qofka qabatimo sonkorta way ku adag tahay inuu ka fogaado. sidoo kale sonkortu waa maadada daboolaysa dhadhan xumada cuntada la farsameeyey. shirkadaha cuntada sameeyana way ogyihiin kolkay cuntada sonkor ku daraan in aad loo cunaayo. waa suuqgeeyaha dhabta ah ee cuntada la farsameeyey, maxaa yeelay 600 oo kun ee warshadaha Mareykanku ay soo saaraan boqolkiiba 47 ka mid ah ayaa sonkor lagu daray, si uu idiin sheegay Dr. Bobkan. bal haddana aynu dul istaagno isticmaalka. waxaa sawirka bidix kaaga muuqda burgerka White Castle-ka cad, bartamaha waxaa ku jira burgerka Bob's Big Boy, midigtana waxaa yaala burgerka loo yaqaano Hardy Thick Burger. sidoo kale waxaa jira burgerka $6 la siiyo ee lagu magacaabo Carl's Jr. oo 2,000 oo kaalori ay ku jiraan. sawirkan waxaan ugu yeedhaa dhagarta Coca-Cola, maxaa yeelay waad arki kartaan markasta qarada cabitaanku inuu sii weynaanayo. maxaan ugu sheegay inuu sawirkan mu'aamarad yahay? baladaan kuu dhiibay isweydii waxa ku jira Coca-Cola. waxaa ku jira caffeine oo keensanaya in badan inaad kaadido, taasoo keensanaysa jidhkaaga inay biyo badan ka baxaan. waxaa ku jira milix fara badan. marka maxaa dhacaya marka jidhkaaga uu biyo badan waayo, milix badanna uu qaato? waad haraadaysaa. maxay tahay markaas sababta Coca-Colaha ay sonkorta ugu badan tahay? si dhadhanka milixda badan loo qariyo. Chantuskan waxaa ka muuqda kor u kaca cunista sonkortu ay kor u kacday dalka Mareykanka 200 ee sannadood ee la soo dhaafay. bal imkana caafimaadka dul istaagno. 20 sannadood ee u dambeeyay markii dadku ay ku baraarugeen halista cuntooyinkan, maxaa dhacay? waxaa hoos u dhacay dhiigkarkii, kolestaroolkii, waxaana kor u kacay firfircoonidii jirka. waxayna la gudboon inaynu raacno caadooyin cunto oo caafimaad qaba, hase ahaatee ma samayno. maxaa yeelay hadda oo la joogo cayilnaanta iyo xanuunkii macaanku xadhkaha ayay goosteen, waxayna dhiigbax ku hayaan dhammaan xarumaha caafimaadka dalalka horumaray iyo dalalka soo koraya. shirkadda Coca-Cola waxay tidhi la dagaalanka cayilnaantu dhammaanteen dadaal midaysan ayay nooga baahan tahay, inaga oo ka duulayna hal qodob oo suuragal ah, kaas oo ah qofku inuu xisaabiyo dhammaan kaaloriga jirkiisa gelaya. kaalorigaasi meesha uu doonaha ka yimaado, haddii doonaan haba noqdaan kuwa laga helo cabitaanada Coca-Cola. haddaba anigu ma aaminsanin suuragalnimada ay sheegayaan, ee waxaan aaminsanahay telekoobka aqoonta ku dhisan. sayniskuna waxa uu inoo sheegayaa kaaloriyadu inay kala duwan yihiin oo qaarkood xanuunada ay u horseedaan in ka badan kuwa kale. taana waxaa sabab u ah jidhka oo qaab kala duwan kaaloriyada u dheefshiida. kaaloriyadu isku wada mid ma aha, waxaana loo yaqaanaa biochemistryga nafaqaynta. markaad intaa fahamtidna waxaad fahmaysaa kaaloriyada oo dhammi in aanay isku mid ahayn, iyo kaaloriyada sonkorta laga dheefaa inay yihiin kuwa ugu halista badan. u fiirsa qiimaha cuntada. cuntada caafimaadka leh labanlaab ayay ka qaalisan tahay cuntada la farsameeyey, kor ayaanay usii kacaysaa. marka waxaa dhici karta qofku inuu is dhaho cuntadan jaban ayaa lagu qaatay, balse waxaa xusid mudan 3 dal ee adduunka ugu cunista badan cuntada la farsameeyey oo kala ah Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia inay yihiin 3 dal ee ugu burburan adduunka uguna xanuunka badan. bal aynu eegno waxa laga dheefay cuntada la farsameeyey. cuntooyinkan cuntaankoodu cirka ayuu isku sii shareeraya, caafimaadkii sagxadda ayuu sii gelaya. dhab ahaantii hay'adda IRB haddii ay qiimeyn ku samayn lahayd cuntooyinkan beri hore ayaa la mamnuuci lahaa geerida ay horseedaan awgeed. deegaankii wuu shuuf beela, shirkadihii faa'iido ayay ku jiraan, hase ahaatee iminka ayay bad ku jiraan. dadka macaamiisha ah waa dad burburan oo losers ah. ugu dambaytana bulshada iyadana musiibo ayaa ku habsatay. maanta Dr. Kazi waxa uu idiin sheegay inay jiraan dhaayatyo badan oo caafimaad leh oo la isku caataysiiyo. dhaayat kasta oo uu idiin sheegay waxaa qayb ka ah qofku inuu sonkorta ka dheeraado, fiberkana uu badsado. mid garanaysa waxa loo yaqaano cunto sonkorta ku yar tahay, fiberkana ku badan yahay, waa cuntada dhabta ah, real food. cuntada la farsameeyey waa tijaabo fashilantay. xanuunka macaanka waa inaynu magaca ka bedelno, aynu u bixinno xanuunka cuntada la farsameeyey. waxaynu cunaynaa cunto tiro badan oo gacan ku samaysa. dadkii kansar ayaa laayay. 4 qof ee kasta mid ayaa kansar qaba, wadna xanuun, macaan. dalalka khaliijka qaar ka mid ah dadka da'da 40 ka weyn 70% macaan ayay qabaan.
maxaa yeelay waxay cunayaan oo cabbayaan cuntada la farsameeyey. kansarku xanuun safmar ah ayuu ka noqday dalalka galbeedka Afrika sababtoo ah waxay cunaan cunnooyinkan samayska ah. Cunto fresh ah oo wacan cunaa. cunista cunto wacani waxay qayb ka tahay diinteenna. markasta oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala cuntada uu soo hadal qaado waxa uu ku laraa in ay noqoto xalaalan tayiba. cuntadaadu waa inay noqoto mid isu dheelitiran. ha cunin cunto xadka baxa. balaynu eegno tirikoob laga sameeyey cuntada la farsameeyey ee laga cuno dalka Mareykanka oo keliya. tirikoobka waxa aanu ka soo xiganay website-ka partnersofyourhealth.com. qofka Mareykanka ay sanadkii celcelis ahaan $1,200 ayaa kaga baxa cuntooyinka la farsameeyey. $50 bilyan ayaa sanadkii dadka Mareykanka ah isu geyn kaga baxa cuntada la farsameeyey. 8% dadka qaangaarka ah ee Mareykanku toddobaadkii hal mar ayay dibadda ka soo casheeyaan. 25 tijaabo ee antibiyootik ahba 11 ka mid ah ayaa fashilmay. dufanka isroga ayay FDA 2016 u aqoonsatay inuu kor u qaado kolestaroolka dhiigga ku jira, taas oo kor u qaadaysa halista ah wadnuhu inuu istaago. wadna istaaguna waa sababaha ugu waaweyn ee loogu dhinto dalka Mareykanka. caagada weyn ee Coca-Cola waxaa ku jira 86 garaam oo sonkor ah. sonkorta oo jirka ku badataa waxay horseedaa wadna xanuun. sidoo kale adeegsiga sonkorta badani waxa ay keentaa cayilnaanta. yoolkooda kali ahi waa xoolo urursi iyo inay lacag sameeyaan. caafimaadkaagana danka ma laha. waa cilmi baadhis sheegaysa McDonald's inay noqon karto balwad la qabatimo sida horowiinka oo kale. cuntadaasi waxay horseedaa xanuuno ay ka mid yihiin wadna xanuun, macaan, dhiigkar, cayilnaan iyo kansar. waxa ay la mid yihiin nikotiinka iyo morfiinka. haddaanu nahay bahda Starbucks waanu ka warqabnaa kofeegu inuu noqon karo sun halis ah oo horseedi kara cudurrada wadnaha iyo hurdo la'aan. sidoo kalena uu dhibaato u keeni karo dumarka uurka leh. sidoo kale Starbucks way ogtahay kofeegu inuu noqon karo mid si weyn loo qabatimo. kofeegu waxa uu keeni karaa wareerka, madax xanuunka joogtada ah, daalka, calool istaagga iyo cadhada badan. waxa aanu sheegaynaa inaanu taageersanahay ganacsiga cadaaladda ah. hase ahaatee keliya 1% ka mid ah midhaha kofeega aanu adeegsano ayaa si musuqmaasuq ka maran yahay noogu soo xirogala. sidaas awgeed ku dadaal cuntada aad cunaysid shirkadda soo saarta inay tahay shirkad wacan, cuntadaaduna ay tahay cunto san oo caafimaad qabta. arrimahan weeye arrimaha ay tahay muslimiintu inay daneeyaan. ha u malayn McDonald's inta aad tagtid inaad ka heli kartid cunto caafimaad qabta. guud ahaan qaabka ay wax u sameeyaan oo dhan ayaa ka soo horjeeda sunnada nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. ninkii hadlayaaba ha hadlo, laakiin waxaan idiin sheegayaa cuntada samayska ahi dadka way burburinaysaa. waa in aynu yarayno oo dhinno cunista cuntada samayska ah. ha cabbin Coca-Cola, ha cabbin Pepsi Cola, ha cabbin Calva Cola, ha cabbin Coca-Cola. biyo cab, caana cab, laakiin ha cabbin cabitaanadan aanay jirin haba yaraatee wax faa'iido ah oo ay kuu leeyihiin. dhibaatada kale ee jirta waa balaastiga xarada beelay ee meel walba daadsan. caagadaha iyo quraaradaha daadsan haddii aad u fiirsatid waxaad ogaanaysaa qashinkoodu inuu buuxin karo magaalada Isna. wax loo dul qaadan karo ma aha. sidan laguma sii jiri karo. waa inaynu helno xal bedel u ah qaabka aynu wax u cabno. waa inay naga go'naataa inaynu yegleenno deegaan cagaaran. diinteenna ayaa ina faraysa. uma baahni sacabka aad ii tumaysaan ee waxaan u baahanahay go'aan dhab ah. waxaan doonayaa dadku inay ka dhabeeyaan go'aanka ah noloshooda inay beddelaan. isbeddelka waa inaynu ka bilowno guryaheena. dadku waxa ay ka hadlayaan cunaqabataynta Israa'iil. anigu waxaan doonayaa dhammaantood inaan cunaqabateeyo. magacooda kolkaad aragtidba hore cunaqabatayn u saar, waxba ha ka iibsan. maxaa yeelay dadkani waxa ay burburinayaan meeraheennii. si xad dhaaf ah ay wax u iibsanayaan, si xad dhaaf ah ayaana wax u iibinayaan. shirkadda Costco ee wholesale-ka ah waa mushkilad cagale. ma ogtahay shirkadda Costco agabka ay iibinayso xataa inaanay magacyo ku dul qorin. maxaa yeelay waxay doonayaan agabkii aad u baahnayd in aad iibsato hore inaanad u helin, taas oo kugu qasbaysa inaad raadiso oo aad wareegto. sidaa waxay u samaynayaan waxay og yihiin dadku in ay iibsanayaan wax badan oo aanay u baahnayn. waxani waa cilmu nafsigii bulshada. waxaa lagugu dheelayaa sidii doolli giraan ku jira. waxaynu u baahannahay caqliyadda ay inagu ciyaarayaan inaynu hor istaagno. maxaa yeelay dadkii ayay burburinayaan. sharcigii qaanuunku dadkan waxba kama qaadayo oo iyaga ayaa maamula sharci dejinta. waxa keli ah ee dadkan wax ka qaadi kara ee hor istaagi karaa waa inaga oo joojina taageeradooda iyo wax ka gadashadooda.
beri hore ayay golaha shacabka iibsadeen oo Congress-ka iibsadeen. Waxaynu u baahannahay dalkeena inaynu dib u soo ceshano. Taana waxaynu ku samayn karnaa inaga oo nafahena wax barna, dadka kalena aynu wax barno. Iyo in aynu qaadano go'aano dhaqanka suuban ku salaysan oo ah in ayna qayb ka noqonin waalidin aynu ku dhex jirno. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu yidhi litakuunu shuhadaa'a 'ala an-naas, si aad dadka markhaati ugu noqotaan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-naas. Astaamaha quraanku inagu sheegay waa inaynu ka dhabayno. Dadku dhibanayaal ayay noqdeen maxaa yeelay waxa yaraaday feejignaantoodii. Sida awgeed aad ayaan ugu celcelinayaa in aynu xalka qayb ka noqono ee dhibaatada aynan qayb ka noqonin. Laakiin waa inaynu go'aano qaadano, go'aamadaana aynu ka dhabayno.